maanta waa khamiis bil u dambaysa waa maalintii dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ay u aastaysay in la nadiifiyo caasimadda. Cabdikariin Axmed Mooge oo maayirka magaalada Hargeysa shaqo waxa uu ku dhawaaqay in ololaha nadaafadda laga fulin doono koonayaasha magaalada oo ay kamid yihiin xabaalaha. Haddaba ciidamada dandamista iyo qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa oo aan mikrofoon kala dhex qaadnay ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan maanta oo khamiisa oo maalintii loo aastay nadaafadda magaalada Hargeysa. maanta waa maalin khamiisa bisha 27 waxa ciidanka dowladda qaranka Soomaaliland gaar ahaan ciidanka Hargeysa halkan ay ku qabanayaan sida idin muuqata shaqadii nadaafadda bilaa ahayd gaar ahaan maalinta khamiista u dambaysa waa ciidanka dowladda had iyo jeer ka qayb qaata ololayaasha nadaafadda haday noqoto kuwa nadaafadda iyo haday noqoto kuwa guudba sidoo kale ciidanku wuxuu markasta heegan u yahay bulshada inuu ka badbaadiyo aafada dabka la dagaalanka dabka badbaadada samata bixinta iyo wax kasta gurmado loo baahdo badanka waxaad aragtaan ciidanka oo hawlo badan ka qayb qaadanaya sida darteed ciidanka iyo bulshadu markasta waa saaxiib oo ciidanku wuxuu adeegaa bulshada wax kasta bulshada ay u baahan yihiin ciidanku qayb uu ka yahay sida aan idin sheegay haday noqoto nadaafad iyo haday noqoto badbaadaba marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa oo soo jeedinayna inay ka qayb qaataan ololayaasha nadaafadda kuwa kale bilicda caasimadda iyo wax kasta horumarka qarankeena iyo jamhuuriyadda Soomaaliland tan waa sida madaxa warbaahinta uu ku warbixiyay ciidanka dowladda waa qaar u hawlan markasta danta bulshada sidoo kale waxaan igu wargelinayaa inaan goobta la qurahayn saaka qaybta ka bilaabantay hawsha shaqo ama ololaha caasimadda bisha khamiista u dambaysa ee maayirku cilaamiyay waxa dadweynaha sharafta laan leeyay dadweynaha ka xume ku tuuraya xashiishka mooyaane balka kalow adoo kii ka qaadan noqo magaalada caafimaadkeedu inuu hagaagaya nadaafaddeeduna inuu hagaagaysa saddex meelood halkan maahay saddex meelood kale ee caasimadda maanta ciidan ka shaqeynaya halkan waa goobtii afraad oo taliska agtiisa intii heegan ku jirtay maadaama heegan ku jiraan ay hawlgalkii badbaadada ahaa ama kii dabka ahaa ama kii naftuura ahaa ciidanka ay u taagan yihiin haddana way adkaysan kari waayeen halkii dhinaciisa ee xayad xashiishku yaalay ayuu ka bilaabmay laakiin kii aan kaga qaybgelinna ololaha isagu sidiisuu socdaa waad arki doontaa meel kastoo aad duubaysaanba ciidanku waa ka mid waana joogaan laakiin tan waa intii ku jirtay waxaan leeyahay dadweynaha maalinta bisha u dambaysa bal inta kaleona iska daay bal maalintaasun gurigaaga hortiisa wax yaala iska qaad